gaari ana ku socdo markii mooto kale li saara li xambaaro waaye adii lagu aan shaqeey maayaan wax dhulka awood ku celi kara ma leeyahay waa ciyaaryahan 22 jir ah ma awoodo in uu hadda ciyaaro kubadda cagta oo ahayd xirfadiisa koowaad muddo 3 sano ayuu saaran yahay sariir waxaana lagu wadaa oo kaliya gaariga dadka baahiyaha gaarka qaba dhaawaca waxa uu soo gaaray asagoo darwal mooto bajaaj ah laakiin waxa la rumaysan yahay in daweyntiisa ay ka dhacday qalad u keenay in ay sii liidato xaaladiisa caafimaad Maryan Maxamuud Barre waa hooyadiis aad ayay uga murugaysan tahay dhibta wiilkeeda soo gaartay hindi in la geeyo inta wajiisaabin inigan hindi geeysta laf ka jaban dhabarka oo dhahay laakiin laf ma jamnaa isbitaalada la geeyo hadda istaalkan jasiira ugu dambeeyay wuxuu dhahay meel oo laga haysto waa fahmile MR soo saar digseer ka soo saar jawaabdi igu soo celi digseeran geeyay waa ka soo saaray jasiira u soo celshay jawaabdi waxay dhaheen saqdi oo isbitaalka hore oo qalay baa looga tagay laba xidoo neerfe oo saan dhexdooda ay saqdi gashay waxay ku noqotay buro camal neerfiya markay cariiri galeen lugaha waxa haysta waxa way qaliin inta lagu maqali karo qaliinkiisa hindi way dhaheen Cabdiqadar waa curadka hooyo Maryan Maxamuud wana agoon aabihii waxa uu dhintay asagoo ku jira caloosha hooyadii waxa uu sheegay inuu wada ka ahaa gaari lagu qaado rootiga isla markaana uu magaalada ku wareejin jiray si nolosha reerkooda oo u dabaro una caawiyo hooyadii iyo qoyskooda baawar markaas baawar u jiray subaxdii habeenkii baawar 8 saac baawar u jiray habeenimo subax 3 saac ku bixi jiray rootiga qaadi jiray xiliga damana mar mooto iska jiray marna caadi iska ay burin iska dheeli jiray waxa dhanka kale uu lahaa mustaqbal iyo himilooyin fog sida dhalinyarada asaagiis ah oo kale xirfadiisuna waxay ahayd kubadda cagta asaga oo u ciyaarayay mid kamid ah kooxaha kubadda cagta dalkeena balse rajadaas waa mid luntay hadda naadi Muqdisho United isbid markii la jiray oo dheeli jiray xilli Muqdisho u dheelay kadib ay Brander liidal asiyay Brander naadiga weyn liidal asiyay adii hal jarnal Daawud intaan dheelinay waa dhibkaan ugu dhaco ciyaar caalami ma ciyaaran laakiin se Muqdisho sirsi kala soo baxay sirbi kala baxay ee la tagay ee magaalada ka bacdi Brander kuuray waxa rajiyay ilaa adii kubadda heer waana gaaro ilaa kubadda cagta ilaa qaran inaan adii u matalo qarnaato safar kala aada inaan matala jeclay laakiin qadarta Allah ay qabsatay alxamdulillah waan ku qanacsanahay dhaqaatiirta ku sugan Muqdisho ayaa ka deeriyay xaaladiisa waxayna ii sheegeen inaysan waxba ka qaban karin laakiin suuragal ay tahay in dalka dibadiisa wax looga qabto hooyo Maryan Maxamuud iyo wiilkeeda Cabdiqadar waxay si naxariis leh uga codsanayaan madaxda dalka ganacsatada shacabka Soomaaliyeed iyo waliba cid walba oo awooda inay garab siiyaan si ay caafimaad dibadda uga raadsato wiilkeeda qof igu maqan male ilaahay ma ogi bilaadan aan hadda wax ka sugay aan leeyahay indii ku geeyni ma jirto ilaahay islaamkan muslimkan ilaahay oo dhaxyaala balse aan agoon waaya bis ama caloosh ku jiray dhintay qof kale hadda igu maqan male wax ani aan meel ku geystana ma hay noloshiisa kalaanba dib ku raadiyaabo inta muslim oo dhaxyaala shacabka ahaato dawladda ha ahaato inta muslim oo dhan oo dhaxyaala inay wax igu qabtaan aan ka rabaa dadkaas hadii ilaahay idmo Soomaaliyeed dawladeed waxa uu dir lahay inta muslimiina inta maqli muuqayga taqaan dawladda ahaato odayaasha dhalinyarada kulli wax sports dhiiro in wax li qabto ilaa wax qaban kare in li garab qabto safarkii xalay hindi way waxana ma iska awoodo ilaa wax awoodo in wax li qabto arjeelay insha Allah ta'ala meeshaas ku soo qoosto caafimaadka ilaahay laakiin meesha caafimaad lagu sheegay in la aado si fiican oo wanaagsan tahay markiin wax li qabto ajeclaalay Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.